بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halkan waxaan ka soo gudbinaynaa casharkeennii 26aad ee fahamka siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaan casharkeennii hore uga soo hadalnay in qurayshi ay cadaadis badan asxaabtii rasuulka saareen, ee asxaabtii rasuulku markaas ay hijroodeen oo ay kaliya hareen abubakar oo nabigu yiri joog isug, iyo sayd cali bin abi aalib oo yaraa, iyo suhayb binu sinaan, iyo zayd binu xaaritha, iyo dhowr kaloo dadkii mustadcafiinta ahaa oo awoodda yaraa ah. abubakar nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu yiri joog, wuxuu ku talagalo diyaarsaday, maadaama nabigu uu yiri aniga ayaa ila hijroo doontaa. 2 neef oo geela ayuu diyaarsaday, markaas ayuu cayiliyey oo cunto badan siiyey si ay u xoogeystaan oo nabiga iyo asagu ay ugu wada hijroodaan. diyaar garow ayuu iska sii gala. marka waa ka sheekay doonaa abubakar qisadiisa, gadaal ayaan ku keeni doonaa. quraysh markay ogaadeen nabiga asxaabtiisi inay baxaan oo xabad xabad inta u siibteen ay baxeen, madiine la iskugu tegay, reer madiinana ay islaameen oo islaamnimadkii ku socdo, ayay yidhaahaan alla ilaha arrintu waa halis, waa in xaalatu daari ah la galaaho degdeg, waa in arrintan la xaliya, hala keeno madaxdii ha isu yimaadeen, shir deg deg ah la qabto. maxaa yeeley haddii maxamed uu baxo banaanka tago, reer madiinana ay saa ugu islaameen, asxaabtii kaloo halkan joogtana xagga u tageen, inuu inta nagu soo duulana qabsado waxba uma jirto. marka xal degdega xal degdega ha yihaahdeen. markaas ayaa madaxyaweyntii quraysh, gaaladii quraysh madaxdoodii oo dhan ayaa isu yimid, shir deg dega ayaa la qabtay. waxaa la yihi shirkan go-aan maanta lagu gaaro, shirkaas go-aan lagu gaaro. shir albaabada u xiran yihiin markii la qabtay, yaa shirkaas ka soo qeyb galaya. waxaa ka soo qeyb galay abujahal, cadowgii ilaahay. waxaa ka soo qeyb galay jubayr binu mudcim. waxaa ka soo qeyb galay xaarith binu caamir. waxaa ka soo qeyb galay shaybata iyo cutba ibna rabiica, labadooda ahaa abu sufyaan binu xarb, annadar binu xaarith, abulbakhtari binu hishaam, iyo zamcah binu laswad, xakiim binu xizaam, nubeyh iyo munabih ibn alxajaaj ahaa labadooduba, umaya binu khalaf, madaxyaweyntii gaaladii quraysh o dhan ka soo qeyb gashay. albaabadu shir u xiran yihiin oo deg deg ah ayaa loo fadhiistay. shirkii markii loo fadhiisto laleeyahay go-aan ha la gaaro, maxamed looga takhaluso, haddii kaleo maxamed banaanka uu tagay sida asxaabtiisa u hijroodeen uu baxo, dib ayuu isu soo abaabulaya, waa nagu soo duulaya, waana na qabsanaya, la ninkan wixiis horay ay u socdaane. ayaa ibliis ka soo qeyb gala shirki. ibliis ayaa wuxuu isku soo suureey nin sheekha oo oday ah oo heybad leh, markaasuu albaabkii iridda kasoo istaagay. albaabkii ayuu iridda kasoo istaagay. markaasaa la yihi mani sheekh, yaa weeye ninka odayga ah. markaasuu yiri waa sheekh min najdi, dhulka xagge oo saroo taagsantaho najdi, nin oday oo ka socda wey. muxuu dhihi waaya la yihi sheekh min tihaama. min tihaama wuxuu u dhihi waayey maxaa yeele reer tihaama waxaa markaas lagu eedeynayay inay nabiga xaggiisa u janjeeraan calayhi salaatu wasalaam. marka nin sheekhoo najdi meesha la yihahdo ka socda wey, soo gala la yihi sheerka waa lagu baahan yahy maantay, fikrad ayaa loo baahan yahay. markaas ayaa baarlamaanka wuxuu dooday, odayaashii quraysh oo baarlamaanka ahaa ayay dood bilaabeen. hal la falanqeeya la yihi xal deg deg ah, xal deg dega ha laga gaara arrinta maxamed a la yihi, nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam ayay ka tashanayaan, xal deg deg ha laga gaaro. abul aswad ninkii la dhihi jiray ayaa hadlay ugu horeyntii, anigu talan hayaahu yiri, maxamed hadduu baxsado banaanka tago inta nagu soo duuluna qabsanayaahe,
anigu fikradan keenaya maxay tahay haa la yidhi bal soo bandhig fikraddaas. wuxuu yidhi maxamed aan cayrino waddankeenaba aan ka saarno aan iska fogeyno banaanka aan dhigno laa nubaali ayna dahab walaa xayثu waqac meel allala meeshuu aadana uma aaba yeelina iyo meeshuu tago cagay jaan dhigo faqad aslaxnaa amranaa arinteenna waa hagaajinaynaa midnimadeenniyaan soo ceshinaynaa marba hadduusan ugu dhex jirin banaankaas haddii uu naga tago oo banaankaas kaga saarno midnimadkeediya noo soo noqonayo nagama dhex ugaarsanayo mar dambe. ninkaasi taladaas ayuu soo bandhig banaankaasaan iska geyno. yaa shir guddoomiyaha baarlamaanka odayaashii quraysh ee nabiga calayhi salaatu wasalaam inay qaarajiyaan u fariista yaa ah oo codka qaybinaya oo go-aanka soo saaraya oo le qodobkaani waa sax iyo kani sax maahan yaa ah. u fiirso guddoomiyaha baarlamaanka ninka shirkaas ka ahaa kee wey waa ibliis. ibliiska shir guddoomiye ah wuxuu yihi ibliis laa wallaahi maa ra'yukum maa haadaa lakum bira' ilaahay baan ku dhaartaye tani tala ma ahan yiri taladaasi waxba ma gasho maxamed aa cayrino banaanka dhigno tala sax maahan. maxaa yeelay alam taraw xusna xadiiثih wa xalaawata mantiqih wa galabatahu calaa quluubi الnaas. war miyaadna arkay inuu yihi siduu hadalkiisu u macaan yahay hadalkiisu si uu sheekadiisa u fiican tahay dhawaqi codkiisu u qurxoon yahay sida hadalkiisu uu dadka quluubtooda u qabsanayo oo u soo jiidanayo miyaadna araguu yiri. war haddaad banaanka dhigtaan oo xagga banaanka iskaga bixisaan qabiiladaas carbeedu inta ku dhex baxo oo tashkiilsado oo islaamiyo oo bedelo ayuu inku soo duulayaa berri waana idin qabsanaya. ninkaasi yuusa gacantiina ka bixin banaanka aan geyno tala ma ahan u yiri berri isagoo junuud mujanada wato ciidamo xoog la wato uu idinku soo duulaa waa idin la wareega idinka. marka taladaasi waxba ma ahan tala fiican ma ahan ayuu yiri guddoomiyihii baarlamaankii gaaladii quraysh oo ibliis. abulbakhtari ayaa hadlay binu hishaam wuxuu yihi anigu talaan hayaa axbisuuhu fi lxadiid wa agliquu calayhi baaba ثuma tarabasuu bihi ma asaaba amhaalahu min ashucaraa aladiina kaanuu qablahu. anigu talada aan idiin sheegaya waxa weeye ninkan silsilad dhab ha lagu siiyo bir ha lagu jaabeeyo kow bir ha lagu jaabeeyo albaabna dusha ha looga xiro guri mugdi inta la geeyo oo aan waxna soo galin waxna ka bixin dusha ha looga xiro. kabacdina suga sidii shucaradii iyo gabayaayaashii hore oo carabeed ku dhacday oo naabiqa iyo zuhayr iyo sidii ku dhacdaa ku dhici doontee halkaas ku suga arinta. ninka warkiisaba banaankaba yuusa soo marin jaabaaya silsiladeeya katiinadeeya gurina korka uga xira waa dhamaad khalaas amarkiisa waa dhamaad. guddoomiyihii baarlamaanka ibliis muxuu yiri guddoomiyihii baarlamaankii gaalada quraysh muxuu yiri wuxuu yiri tani tala ma ahan yiri tan tala ma aha taladaas laguma guuleysanayo. maxaa yeelay wallaahi lain xabistumuuhu laykhrujana amruhu min waraa'i اlbaabi aladii aglaqtum duunahu ilaa asxaabih. war ninkan nin caadiya ma ahanu yiri haddaad xirtaan hadda sidaa sheegteen hadalkiisu guriga dhabarkiisuba ka baxayba maaha nin warkiisu uu yahay nin la qari karo. ibliis waa shaydaan uusa xaqa qaadan ilaa xaqiiqadii ogi qof la qari kara ma aanu yiri hadalkiisu guriga darbigiisu ka baxaya markaasuu asxaabtiisi gaaraya ya nin haddii meel lagu qunfulo ku joogayo ma ahanu yiri asxaabtiisii uu gaaraya. kabacdina hadda inta idin soo weeraraan inkala baxayaan inta idin soo weeraraan ayay gacanta inkaga dhigayaan. taladaas ha loo noqdu yiri taasna talo lagu fawsayo ama lagu najaxayo ma ahan u yiri. cadowgii ilaahay abujahal ayaa isi soo kilkilay wuxuu yihi anigaa tala haya talada ugu fiicneed
anigaa haya oo aanan qofna ka maqlen. maxay tahay taladaas? wuxuu yidhi qabiil kasta oo Quraysh wiil dhalinyaraha laga soo qabto oo xoog leh oo qabiil fiican jufa fiican ka soo jeeda oo qalabkiisa hubka militariga saanadiisa u dhamaystirantahay seeftiisa iyo wixiisu hala isku keenuu yidhi intaasoo nin oo akhyaar ah oo qabiilooyinkii laga soo soocay hala isku keeno. markii la isku keeno intaasoo wiil ha u tageen Maxamed hal mar seefta ha saareen uu yidhi hal mar. qabiilooyinka Quraysh oo dhan laga soo aruuriyey hal mar seefta ha saareen uu yidhi hal mar. kulli mid ku qabiila lama arko. markaas hadday saa u dilaan oo laga takhaluso reer bani cabdimanaaf oo Maxamed ka soo jeedaahi awood ma u leeyihiin inay Quraysh oo dhan la dagaalamaan? maya. diyay ku raali noqonayaan, diyana waa siinaynaa uu yidhi. taladaas aan u hayaa. ibliis muxuu yidhi haada ara'yu aladii laa araa hayrahu. tan ayaa ah talada saxda oo aan loo noqonayno yidhi. mid kaleba anuma arkaba. tan ninkaas hal mar ha laga takhaluso, wiilasha ugu fiican ha lasoo saaro, seefahoodii qalabkooda ha loo dhiibo, hal mar seefta ha saareen, ha kala jaraan. reer cabdimanaaf oo jufada is yarna Quraysh oo dhan lama dagaalami karaan, diya inay iska qaataan ay raalli ku noqonayaan, diyana waa siinaynaa yidhi. xama ninkan waxa uu nagu wado ayaa nooga daray. go-aankaas ayaa meesha ka soo baxay. waa lagu kala tegey, nagu kala wajaa leer. maanta shirka albaabada u xiraa, sidaas ayaa lagu heshiiyey, waa la laabtay. caaway ha la isu yimaadaa leer. waqtigaas caawa inta la isu yimaado hal laga takhaluso. waqtigaas caawa inta la isu yimaado ha laga takhaluso. waqtiyaa la qabsaday. raggii loo doortay yaa ka mid ahaa 11 nin oo madaxdoodii ka mid ahaa. 11 nin ayaa ka mid ahaa. 11 ayaa ka mid wax soo dilay nabiga calayhi salaatu wasalaam. abi jahl, xakam binu abilcaas, cuqbata binu abi mucayd, النضر بن حارث، أمية بن خلف، زمعة بن الأسود، طعيمة بن عدي، أبو لهب، أبي بن خلف، نبيه بن الحجاج، يولالكيس منبه بن الحجاج. كوب iyo 10kaas ayaa loo magacaabay, waxaana la yiri kasoo takhalusa la yiri. ninkaas caawa inta u kuur gashaan qalabka soo siiya. waxaana nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa ka mid ahaa habeenkii fiidka horuu nabigu seexo jiray, waqtiga dambana inta soo toosuu kacbada tegi jiru ilaahay ku caabudi jiray. sida dadka wanaagsan dhaqankooda uu yahay, waqtiga dambe inta soo toosaan ay ilaahay baryaan. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. dhinacyadooda ayaa ka dheeraanaya sariirihii iyo jiifkii ayuu rabbigooda caabudaya oo baryaya oo maaragtay cabsi awgeed iyo damac ay ilaahay rajadiisa rajayn, cabsi ay naartiisa ka cabsanayaan iyo damac ay jannadiisa iyo rilihiisa damcayaan. wixii aan siinana wax ka bixinaya. marka nabigu calayhi salaatu wasalaam qisada waa isku xigtahayaanna wax iska soo dhex geline. habeenkii waqtiga dambe u bixi jiray kacbada. marka waxaa la yidhaha markaas uu soo baxo hala qaarajiyo. intaasoo nina loo soo bixiyey. raggaas markii loo soo doortay maalinkiina lagu kala tegey ee la yidhi caawa ha la fuliyo assassinationkaas, shirqoolkaas caawa ha la fuliyo markii la yidhi, nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa waardiye ka ah ilaahiisii jala jalaaluhu. malaku jibriila loo soo diray. malaku jibriil muxuu ku yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam, laa tabiti leyla calaa firaashika aladii kunta tabitu fiih. caawa ha ku hoyan oo ha ku baryin gogashii aada ku seexo jirtay. caawa ma jirtaa lir arrintu sidii waa ka bedelan tahay. gogashaadi ha ku seexan. waana loo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii wax u dhici doonaa.
sida wax u dhici doonaan ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam isla maalinkiiba la ogeysiyey. barqadii go-aankaas la gaaray maalinkeediiba nabiga waa la ogeysiyey calayhi salaatu wasalaam caawa waxa lagu kici doono. nabigu muxuu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam saaxiibkiisii abubakar asidiiq ee uu nabigu reebay si uu ula haajiro ayuu soo aaday waqti duhur ah oo maaragtay aan ahayn waqti nabigu uu imaan jiray. waqtiyada duhurkii in la isku soo werwera dadka ma fiicna ma ogta, laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinkaas arin ayuu u socday. xadiid bukhaariya weeye. caaisha waxay tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam waqti duhur ah asagoo koofidiisa xeran ayuu soo baxoon u jeedna. markaas ayaa sayid abubakar la yihi nabigaa soo socda calayhi salaatu wasalaam. markaas sayid abubakar yihi wallaahi maa jaa bihi fi hadihi saaca ilaa amr. waqtigan waxa nabiga keenay ma ahan wax sahlan yihi, arrin weyn aa jirtu yihi. waqtiga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa keenay waa wax weyn yihi, arrintu arrin caadi ma, xaaladdu caadi maaha. abubakarna awal hoda diyaar iska ahaa oo nabi maxamed inuu raaci doono niyeysta oo labadiisa halaad diyaarsada. nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu guriga abubakar soo galay oo uu salaamay uu yihi abubakarow dadka kula jooga banaanka usoo bixi, guri gooniya gee, qol gooniya, xaaladdu waa adag tahay. shir kaloo albaabada u xiran yihin saaka shir albaabada u xiran yihiina dhacay. shir albaabada u xiran yihin waa in la galaa oo sirtaasi aysa bixin. sirtaasi waa inaysa bixin. marka nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam banaanka keenu yihi dadka kale. markaasuu yihi yaa rasuula allah inamaa hum ahluk. rasuulka ilah waa ahalkaagi bis waxa jooga. sayid abubakar iyo faamiligiisu nabiga ahalkiisay ahaan, gaar ahaan caaishana hadda nabiga markaas waaba lagu nikaaxiyo, nabiga xaaskiisiita waa ku mehersan tahay. ahalkaagi wey. nabiga calayhi salaatu wasalaam sayid abubakar usoo galay, arrintii u sheegay, wuxuu yihi caawa isdiyaari, caaway socod weeye, waa dhaqaaqeynaa. waxa weeye go-aanay iyagu gaareen, ilaahayna go-aanu gaaray, ilaahayna waana siiyey amarkii, isdiyaaru yiri. ya maxaa yeelay in la isqaarajiya meeshii soo baxday, talooyinkii kaleo aan xirno iyo aan bixino iyo waxo dhan waa soco waay, hala qaarajiya layiri nabiga alayh isalaatu wasalaam. markaasa ilahay qur-aanka uga sheekeyna waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuk aw yaqtuluuk aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala markii xusaa la yihi nabi maxamed oo waqtigii kuwii gaalada ahaa ay shirqoolka samaynayeen oo adiga shirqoolka ay kuu samaynayeen, liyuhbituuka sida ay kuu sugaan oo ku xiraan macnaha, aw yaqtuluuka ama inay ku dilaan, aw yukhrijuuka ama magaaladaada ay kaa saaraan. waa saddexdii fikradooda ilahay qur-aanka ku tilmaamay. siirada nabiga horaan usoo niri waxay noo cadaynaysaa qur-aanka fasirkiisa. hadda erayadaas waa soo sharaxna, hadda sharaxoodan soo sheegna. warkii uu yihi abulaswad, warkii uu yihi abulbakhtari, warkii uu yihi abujahal, kulli waa soo sheegna. marka wuxuu yihi shirqoolay samaynayeen, laakiin ilaahayna shirqoolkoodii mid ka daran ayuu samaynayaa, ilaahayna ka awood badan. macnaha koodu ilaahay ku rogaya, ilaahay shirqool looma tiiriya, macnaha ayaga hadalkoodiya loo munaasabeynaya. nabigu calayhi salaatu wasalaam sayid abubakar isdiyaariyu yiri, caaway waa baxayna ani adigu isdiyaari. suubanuhu sala allahu calayhi wasalam marka sidii caadiga ahayd howlihiisuu iska qabsada. maalinkaas sayid cali binu abi aalib u yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam, kaala yiri. sayid cali binu abi aalib yuu ahaa? wuxuu ahaa nabiga ina adeerkiis abu aalib oo nabiga soo koriyey, wiilkiisi oo nabiga ina adeer laxmiya la ah. kabacdina nabiga faaduma zahre uu siiyey. nabigu wuxuu yihi caaway shirqoolkaasaa jira, shirqoolkaas ayaa jira oo layla damacsan yahay. waxaana waxyi ku socdaan iyo diin ma ahan wax oo iska sheeko sheeko ah. adiga maadaa lagaa rabaa caaway inaad samaydid, waxna kuma taaba doonaan. meeshaydii ayaa caawa seexan doontaa. markii caawa nala soo hareereeyo oo quraysh go-doonna soo geliyaan ee meel kasta nala ka go-doomiyo
booskaygii aduu seexo doontaa u yiri nabigu alayhi salaatu wasalaam, meeshaydii seexo, mustahaygii huwa, aniguna waa ka dulbaxaya, waxbana kuma taabanayaan. nacam yiri sayid cali bin abi daalib radi allahu canhu, khaliifka islaamka ee afraad. markaasuu habeenkii markii waqtigii la gaaray ayay quraysh go-doon ka qabteen guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam. nimankii loo soo magacaabay ayaa guriga nebiga soo go-doomiyey calayhi salaatu wasalaam. markay guriga nebiga go-doomiyeen, nebigu sayid cali ayuu yihi seexo meeshii. sayid cali waa seexday meeshii nebigu seexday calayhi salaatu wasalaam, inta dharkii nebiga howday. wuxuu ahaa ayaa la ereeday qofkii ugu horeeyey ee ilaahay dartiisa naftiisa ku gatay oo naftiisa rasuulka ku furtay radia allaahu canhu wa ardaah. ya jacaylka nebiga u qabaad ka fahmaysaa. sayid abubakarna waa soo sheegnay, mid kastahay maqaamkiisa iyo weynankiisuu leeyahay. hadhihin sayid cali kaliyahan jecel lahay, abubakarna waa nibca. hadhihin abubakar aan jecel lahay, sayid calina waa nibca. midna maya, kulligood waa isla socdaan, mid ka hara ma jiro. khulafadii rasuulka o dhan mid kastaa hawshiisu qabtay. abubakara ugu fadli badan, islaamka isku raacsan. sayid cumar binu khadaaba ku xiga, islaamka waa isku raacsan yahay. sayid cuthmaan binu cafaana ku xiga, islaamka waa isku raacsan yahay. sayid cali binu abi taaliba ku xiga radia allaahu canhum. afartoodaas afartii khaliif oo islaamka oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wey, oo midba mid ka dambeeyey. sayid cali naftiisa nebiguu ku furtay meeshiiyuu seexday. markii qurayshi ay nebigii inta soo hareereen ay fariisteen meeshii oo ay seefahooda diyaarsadeen oo isleeyihiin hadhow markuu soo kaco hal mar seefta la saaro. hadda ilaahay wuxuu yihi shirqoolay wadaan, laakiin tan ilaahay ka weyn. nebigu wuxuu akhriyay calayhi salaatu wasalaam yaasiin, yaasiin walqur'aan alxakiim ayuu akhriyey ilaa sudan wa min khalfihim ama sadan wa min khalfihim. labada qiraba waa laba oo 7 qira ka mid ah. sadan fa aghshaynaahum fahum laa yubsiruun. intaasuu akhriyay nabigu alayhi salaatu wasalaam. cantooba ciidana nabigu markaas uu soo weysiistay, cantooba ciiduhu nabigu inta soo qaatay calayhi salaatu wasalaam uu madaxa uga wada shub. ayagiina hurdaa lagu tuuraba. nimankii dhammaayo caawa usoo dhaqaaqay inay nabiga dileen calayhi salaatu wasalaam, hurdaa lagu tuuray. maxaa yeele ilaahay baa waardiinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam. wallaahu yacsimuka min annaas. ilaahay bini aadamka kaa ilaalinaya, bal jiniya laga ilaaliyay insi kulli waxaa dhan. shaydaankii nabiga uu yihi aniga wuu igu soo aada waa islaamay. qof kastaba shaydaana kusoo aaday, nabiga wuu islaamay kiisii. kii kusoo aada nabiga calayhi salaatu wasalaam, madaxa ayaa nabigu ciidda uga wada shubay. markaas hurdo la wada dhacen qaah, meeshii la wada daateen hurdo. sida xadiid saxiixa uu qorayo, nin kasta oo ciiddaasi madaxiisa gaartay, nin kasta oo ciiddaasi madaxiisa gaartay maalinkii bedera ayaa la dilay isagoo gaala. ya nin kasta oo ciiddaasi madaxa nabigu uga shubay qad qutila yowma badrin wahuwa kaafir. maalinkii beder, dagaalkii beder ayuu ku dhintay isagoo gaal ah. allahu akbar, mucjizo wey. markaas ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ku dullugay, tartiib uga dhex baxa. ya salaama ayuu nabigu uga dhex baxay oo meeshii fafadhiya ruqunduda. markaas ayuu nabigu wuxuu u tagay saaxiibkiis abubakar asidiiq radia allaahu canhu. abubakarna waa diyaarsanya soo maa. markaas ayay waxay ka baxeen gurigiisa dhabarkiisa albaab ah oo khuuqa ah ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sayid abubakar ayay ka baxeen. muxaadaradeennii hore ayaan kusoo sheegnay nabigu qarsoodidan uu baxayo ummaddu ku tababarayaa ma ahane, macnaheedu ma ahan inuu nabigu cabsanayo ilaahay aaba u ballan qaada inuu ilaaliyo, laakiin nabigu ummaduu rabaa tarbiye inuu siiyo inaan halis la isgelin. ya markaasuu nabigu ka dhex baxa calayhi salaatu wasalaam. asaga iyo sayid abubakar halkaas ayay ku baxeen. markii halkaas nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku baxay, meeshii jihaadii loo malaynayay inay aadaan oo madiine maba aadinba.
dhinac kale ayay nabiga aadeen calayhi salaatu wasalaam iyo sayid abubakar. buurkii khaaru thawr ayay aadeen, khaaru thawr ayay aadeen oo dhinaca madiina ka xigta maahan, dhinac kaleba xiga. nabigu calayhi salaatu wasalaam halkaas ayuu buurkii koray oo godkii macnaha khaaru thawr ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo sayid abubakar ay galeen. markii nabigu calayhi salaatu wasalaam xaggaas ay aadeen oo meeshaas ay galeen, waa ka sheekey doonaa. nimankii meesha iyagoo wada dangiiga oo madaxa ciida uga buuxda ayaa nin ah ayay ka mid ahan yiri, war maxaa inku dhacay? maadaa tantadiruun? maxaad sugaysaan? ninkaas indhaha kala qaad, sayidina maxamedaan sugayna. markaasuu yihi ilaahay baan ku dhaartay mar horu inka dhex baxa, mar horu inka dhex baxay, ciidna madaxa inkaga shub. markaasaa nin kasta madaxiisa taabtay, ciidaaba ka buuxda, ciid ayaa ka buuxda. meeshiyaa lagu yaacay. saa sayid cali bin abi aalib ayaa jiifa meesha. markaas nabigu uu hijroonayo, sayid cali meeshaa seexuu yiri, wuxuuna yihi iga soo dambee. nabigu wuxuu ku yihi ammaanooyinkii la ii dhiibay soo gud. u fiirsa quraysh, nabiga ayagoo sida u dhibaya oo la dagaalamaya ayay haddana maxamedul amiin u yaqaanay. markaasi amaanada u dhiibanayeen, amaanada ayay u dhiibanayeen. markaas sayid cali ammaanooyinkii nabigu hayoo dhan soo guday, ammaanooyinkii oo dhan ayuu soo guday radia allahu canhu. waxay hadalka siduu isu burinaya meeshaas ka fahmaysaa. nebiga ayagoo le waa beenlow, waa saaxir, waa kadaa, ayay haddana ammaanada u dhiibanaya inuu amiin yahay ay aaminsaneen. nabiga calayhi salaatu wasalaam marka sayid cali ayuu halkaa uga tagay oo meeshiina ku bedelay. haddana ammaanooyinka inuu hadhow kasoo gudo, waana soo gudo kabacdi, maalmo yar kabacdi waa sheegi doonaa inuu gadaal nabiga uga daba taga madiina. nabiga iyo sayid abubakar asidiiq radia allahu canhu markii ay tageen godkii ayay galeen. godkii markii ay galeen, markay godkii tageen, sayid abubakar asidiiq radia allahu canhu wuxuu yihi rasuulka ilaahay o godkan ma gelaysid, waa god oo cidna aysa gelin oo khatara. marka wuxuu yihi aan kaa hubiyo. markaasuu inta galo godkii xaaq oo godkii fiirsha daldalooladii ku jiro dhamaradiisu inta jarjaray uu ku gufeey meel kastoo daloola, si nabiga calayhi salaatu wasalaam uusa bahal inta kasoo baxa u qaniinin. markaasuu wada gufeey. markii uu ku gufeeyey waxaa soo haray laba meelood. labadii meeloodu cagtiisa ku aati, labadiisa cagood ku kala aati. markaasuu yihi rasuulka ilaahay soo gal. markaas ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam abubakar barkada lugtiisi, abubakar ayuu barkaday ku dul seexday. hadda markaas nabigu abubakar inuu ajar badan helu raba. abubakar nebi maahanoo waxyigi kusoo degi maayo diintii. nabiga calayhi salaatu maqaamkiis ma joogo, laakiin khidmada uu nabiga u khidmaynayo oo uu adeegayo ayuu wax ku helaya. kaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sayid abubakar lugtiisii barkaday. marka uu barkaday ayaa bahal abeesa inta soo baxdo meeshii daloolkeed ka soo baxday ay ruugtay lugtii sayid abubakar sidiiq qaniinte. markaasay qaniinto ruugtay. markaasuu is adkey. muxuu isu adkeynayaa? wuxuus yihi haddii aad dhaqaaqdi nabiga hurdada uga nexinaysaa, bal maqaamkiisa iyo u fiirsa jacaylku nabiga u qabay isu ixtiraam ah. adkeyntii uu is adkeynayay ilin ayaa kasoo baxsatay. ilintii ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dhacday. markaasuu nabigu soo toosa. markaasuu yihi maa laka yaa ababakr, maxaa kugu dhaca abubakarow? markaasuu yihi rasuulka ilaahay bahalaa e cunay, marka waa ilintii xanuunka. markaasuu nabigu gacanta ka mariyey. gacanta nabigu markuu gacanta ka mariyey, hadda nabigu imisuu qof gacantiisa ku daaweeyey. axaadiista saxiixaad sayid cali oo daaf qabo isha gacanta ka mariyey, saa labadiisa indhood noqdeen saafig, waa u tegi doonaa. asxaabiga lugta ka jabuu ka mariyey, markaasay sidiisa ugu soo noqotay. asxaabiga ishu kasoo dhacduu ka mariyay gacanta, markaasay ishiisii ka fiicnaata tii kale. nabigu gacantuu ka mariyay, markaasay fag u tiri radia allahu canhu wa ardaah. naftiisuu ku furta nabiga calayhi salaatu wasalaam. waqtigii ayaa dhammaaday. casharkeena dambe ayaan halkaa kasii wadi doonaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh.